marka nabigu sallallahu alayhi wasallam ahla naarka calaamaadka lagu yaqaan markuu ka warramay wuxuu yiri kullu utulin jawaa wa mid kasto dabeecad ingigsan oo dabeecad qalafsan oo dadkoo dhan ay isqaban kareynin cidna la socon kari maayo jawaadin cunka badan lagu nabigu yiri mustakbirin kibir badan oo xaq hadii loo sheegana xaq marna aan qaadanayn qofka hadaa daraato xaq loo sheego qaadan waayo sifadkaas waa sifada mutakabbiriinta sifada marka dambe qofka naar bay ku tuuriyo marka xaq ha eegin cidda tiri xaq nin waalan hadduu ka ilaado war ilaahay ka baq madla yaabi oo nin waalan war ilaahay ka baq buu ka ilaado waa inaad cabsootaa oo tiraada war ninkaas waa laga dhawaajiyey ninka hadalka uu ku hadla waa hadal xaqa weeyaano ana la isoo dhex mariyo hadalkaas waa in ilaahay ka baq لا تنظر إلى من قال ولكن انظر إلى ما قال لا تنظر إلى من قفك يريد إيجي لكن قولك يريد إيجي اتق الله هدوك إلى هذا المعذورة دوا ورصح ورقص لا إله إلا الله حقنا قالوا دبع عدى ونكسل كل ذلك لأن أخلاق ده ونكسن ده أمتك وقول نحضر يقول وفك واحد مجتمع كل حمر يا ما هذا غاليه ما هي أقوانته وليه وفك واحد من آذن كقيمة هو يلي وأخلاق ده ونكسن